حبيبنا حبيبنا ألف صلى الله على قمر الكمال حبيبنا من سكن طيبا من سكن طيبا ونال در المعالي ألف صلى الله باعث الآمال في ليل الحيارى حبيبنا نوره جل رهيبات الليالي ألف صلى الله على قمر الكمال حبيبنا من سكن طيبا ونال در المعالي سيدي ما كان ينطق عن هواه حبيبنا قوله أوحى به رب الجلال. waxaan markana u gudbi doonaa group A oo weli waxaan gudaha kaga jirnaa oo aan ku guda jirnaa su-aalihii ama tartankeenii madrasatu riyaad uljanna fi qismi lbanaat caawa lagu tartamayo caqiidatulmuslimiin guud ahaan caqiidada islaamka iyo siirada nabigeena khulaasatu nuur lyaqiin fi siirati sayidi lmursaliin nabiga siiradiisa salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyh. okay, sharkantu ha yaraato maasha allahu tacaala. qof walbo islaazimi in lagu jiro imtixaan buuqu inuusan yaraan. qof walbo uga haddaa hadashid codkaaga iyo voicekaaga meesha waa ku duumayaa, dib baan lagaaga dhegeysan doonaa adiga iyo ciyaalkaaga isla sharqamaya. marka inaad si fiican isku ilaalisaan waa muhiim weye. hadda umahadsantihin jazakum allahu khayran. okay, qaybtii labaad imtixaanka insha allahu tacala unsoo gudubno marka waa group A iyo siiradii nabigeena salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyh. okay, faaduma aadan qofka koobaad. faaduma aadan. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. okay, فاطمة adaa lagugu bilaabay group A siirada nebiga noloshii nebigaan ka bilaabayna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. nebi maxamed yaa loo soo diray? مخلوقة dhamaantiis. makhluuqe dadka dhana loo soo diray. dadka yaa ula jeedaa? dadka ma anaga keliya naloo soo diray mase waa jinni iyo insi iyo wax walba nebiga waa loo soo diray? sheekhu waxaa loo soo diray dadkii markaas joogay oo qoraysh ahaa, laakiin ummadda dhan uu nebiga oo risaalada u waday. nebigu diintu la yimid maxay ahayd salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyh? diinta islaamka sheekh. okay, nebiga nasligiisi yuu kasoo jeedaa? iyuu u dhashay nebi maxamed? carab garanay laakin iyuu u dhashay? qoraysh. okay, yuu u nisba sheegtaa nebi maxamed oo markuu aftirsigiisu yuu gelaya? reer binu hashim. okay, kasii soco reer binu hashim, kasii soco reer binu hashim. yuu kaloo gelaya? aftirskiisa ilaa iyo wuxuu gelayaa cadnaan ilaa nebi ismaaciil. okay, nebiga aabiis magaciisa? cabdullaahi. awowgiisna? cabdimudalib. awowgiisii kalena? hashim. kan kusii xigana? cabdinaaf. kan kusii xigana? qusay sheekh. ibn cabdi manaaf maxaa ku xige? waxaa tira cabdullaahi ibn cabdilmutalib ibn hashim ibn cabdi manaaf. ibn qusay.
ibn qusay nabiga hooyadiis magaceed aaminata binti wahbin. okay aabihiis iyo hooyadiis aw maxay xagga abtirsiga awgay ku kulmaan kilaab. okay nabiga aabihiis goormaa la ofsaday u dhintay salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyh nabiga calayhi salaatu wasalaam oo uurka hooyadiis ku jiro 2 bilood ayuu ahaa la sheegaa. meel ku jiray aabihiis markaas 18 sano. magaaladee lagu dugay madiino. maalqabeen miyu ah xoolo fara badan miyuu ka tegay mise nin iska miskiin oo faqiir ah wax maal ugama teginin. okay nabigu magaaladee ku dhashay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh makatul mukarama. maalinkee dhashay maalin isniin ah. taariikhdu maxay ahayd rabiicul awal 12 bisha rabiicul awal 12 sanadkaas maxaa lagu magacaabi jiray caamulfiil. caamulfiil maxaa loola jeedaa sanadkii maroodiga. okay nabiga yaa nuujiyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh after hooyadiis subaybat al-aslamiya bacdina xaliimata okay yaa shaqaale khaadim iyo u ahayd suwayba adeerkiis abulahab. okay kabacdi waxaa tiri xaliimi sacdiya nuujisay ilaa cumrigiisu meequ intuu ka gaarayay nuujinaysay xaliimi sacdiya sheekha waxaa umalaynaa intii ciyaalkan nuujinayo bad wuxuu la joogay ilaa 4 sano uu ka gaarayo. okay baarak allahu fik aad umahadsan tahay faadumo jazaki llah khayran shamso ha sheekh okay nabiga hooyadiis goormaa la ofsaday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh goormay dhimatay amiin rasuulka 6 sano jira alayhi salaatu wasalaam. okay xaggee ku dhimatay waxay ku dhimatay meel u dhaxaysa Makiya Madiina abaleyra. oo maxay u socotay markaa markay dhimanaysay safarkeedaas waxay u socotay rasuulka alayhi salaatu wasalaam waxay soo booqanaysay aabiis qabrigiis isoo siyaaranaysa nabiga salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyh awowgiis tarbiyadiisa goormuu la wareegay nabiga jadkiisa markii hooyadiis dhimatay buu la wareegay ha oo cumrigiisu meeq u ahaa waqtigaas rasuulka 6 sano ahaa alayhi salaatu wasalaam. 6 sano ahaa awowgiis goormuu dhintay marka mee ku jiray marka awowgiis dhimanaya nabiga 8 sano. okay meeqa sano kafaalo qaaday marka 2 sano markuu kafaalo qaaday kadib awowgiis dhintay. awowgiis markuu dhintay yaa kafaalo qaaday nabiga hawshiisi la wareegay adeerkiis Abdaalib. okay shukran waa shamso waa mahadsan tahay. okay maryan cabdulqaadir. السلام عليكم. مريم عبد القادر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى ذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه يرانتيسي مركو يرى شقو لها وشقين كلا عليه مو شقين كلا نيو أن أريغو راجرين أو يو راجري أريغا ريال مدينة ريال مدينة أوكي مركا ما العقب كو قاعدين جري مسافرين وراجري maya lacag ada iyo qarash u raaci jiray uu ku noolaado. okay nabiga safarkiisa ugu horeeyay uu safar Shaam meeq waa cumrigiisu 9 sano. okay markuu safray Shaam yuu kula kulmay iyo isku arkeen wuxuu la kulmay suufiga la yiraahdo Bahira. okay Bahira muxuu yiri markuu arkay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri wuxuu ku aqoonsaday nabinimadiisa marka adeerkiisa wuxuu ku yiri wiilkan Ali oo muxuu uga cabsoonayay Ali muxuu leeyahay wuxuu uga cabsoonay macnaha dadka inay nabiga daba galaan ay dhibaateeyaan
dartiisa. okay safarkii labaad oo nebigu shaam uu aaday cumrigiisu meequu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh? 25 sano. oo safarkaasi xikmadda u baxay maxay ahayd nebigu? tijaaro u baxay oo Khadiija ayuu u qaaday. okay khadiija maxay khadiija iyo nebigu waqtigaas maxay isku ahaayeen? nabiga Khadiija u shaqeyn jiray, marka Khadiijana waxay ahayd qof oo xoolo iyo sharaf iyo maal Ilaahay uu ku muneystay. okay oo maxay ugu dooratay marka nebigu inuu shaqaalaheeda uu kamid noqdo xoolaheeda ugu shaqeeyo? waxay ugu dooratay waxay maqashay nabiga inuu yahay runlow iyo amaanadiisa iyo akhlaaqdiisa wanaagsan bay maqashay, markaasay shaqadaas ugu dooratay. okay yaa kaloo la socday nebiga sala allahu alay wasalam nebiga garanaya? safarkii labaada may kaa laftigiisa ha safarkii labaad ha safarka ha okay waxaa la socday Khadiija adoonkeeda Maysara la yiraahdo. Maysara la socday. okay nebiga Khadiija goormuu guursaday salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyh? wuxuu guursaday 2 bilood kadib markuu kasoo laabtay safarkii Shaam. laakiin ka hor ma u doonay nebiga miyuu doona? ha wuu doonay. okay 2 bilood ka bacdi safarkiisii uu kasoo noqday Shaam buuna guursaday Khadiija. صح. okay Khadiija marka nebiga maxaaskii ugu horreeyay nebiga ahayd mase dumar kale ugu horreeyay rasuulka? xaaska ugu horeeyay ahayd, laakiin ayada oday macnaha nabiga qofka ugu horeeyay ma ahayn, nin kale qabi jira, laakiin nabiga xaaska ugu horeeyay ahayd. maasha Allah cumrigeedu meequu ahaa markii nabiga guursanaysay? cumrigeedu wuxuu ahaa 40 sano, nabiga cumrigiisana wuxuu ahaa 25 sano. oo meeqa u dhaxeeya marka sanadood? 15 sano u dhaxeeya. 15 sano u dhaxeeya. والله مشكلة. waa gartay ka wariyay soo guursatay Khadiija nabiga ka hor sallallahu alayhi wasallam? waxay soo guursatay nin la yiraahdo magaciisa Abi Hala. okay ninkaas ka bacdi ma noolaan soo dhintay? wuu dhintay. markuu dhintay nabiga hal cunugay u dhashay magacana la yiraahdo Hala ama Hinda. labada waa la sheegay. okay barakallahu fiki gabadhayda Maryam aada u mahadsan tahay. qodob bishaar. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم markii xajar al-aswad uu dhigayay qorayshta uu la qaadayay maxkamadda xajar al-aswadka nabigu meequu ahaa inkiisa meequu jiray salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyh? 65 sano. okay xajar al-aswadkaas xigmadda loola jeeday muxuu ahaa nabigu markii wada dhigayeen? qoraysh ayaa isku qabtay xajar al-aswadka qofkii booska dhigi lahaa, markaas maxay dhaheen nabiga qofka ugu albaab ka soo qalaya ku raali noqonayna. qofka ugu muxuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam, markaasuu ku xukmiyay muxuu dhahay mara soo qaada xajar al-aswadka saara, markaas qabiilada madaxeeda afartiisa qabto nabiga booska loo kala saaray. okay maasha Allah waa gartay. nabiga muxuu ku shuurooba nabiga maxaa loo yaqaanay qoomkiisa dhexdiisa maxaa loo yaqaanay nabiga sallallahu alayhi wasallam? nabiga inuu run badan yahay oo dulqaad badan yahay, wax walba wanaag ku sifoobo ilaa ugu caan Maxamed al-Amiin. nabiga saas u yaqaaneen? okay nabiga goormuu jeclaaday ajkiisa meequu ahaa markuu jeclaaday inuu dadka gooni uga baxo? 40 sano markuu gaaray. 40 sano markuu dhawaaday. markuu dhawaaday. okay nabiga xagee markuu cibaadeysanayay waqtiga? dadka qaar xira. oo qaar xira xagee ku taala? waxay ku taala Makka iyo Madiina taxtooda ay tahay. Makka iyo Madiina dhexdooda? qaar xira horta maxaa tahay sidaada bini aadamka? qaar xira maxaa tahay? geed miyaa mise waa meel guri oo la seexdo? qad waayo qaar xira.
qaar xiro waa good waaye. Okay, nabiga magaciisa maxaa la dhahaa? محمد. aabihiisna عبد الله. hooyadiisna آمنة بنت وهب. hooyadii u dhasheen nabiga iyo hooyadiis iyo aabihiis faamilkee u dhasheen? حاول كان عرب قريش. Okay, ambiyada ilaahay nabiga ambiyada ma ugu dambeeyey mase waa laga dambeynaya nabi maxamed? هي أنبياء وقدم في النبي عليه الصلاة والسلام. yaa loo soo diray nabi maxamed sala allahu alay wasalam? ummadda dhan aan loosoo diray iyo jin iyo insi caalamka dhan. Okay, xikmadda loo soo diray waa maxay nabiga sala allahu alay wasalam? xikmadda loosoo diray maxaa waaye nabiga inuu dadka markaas salamaan caawudaya inay jaahilka uu ka bixiyo uu kusoo hanuuniyo jidka toosan. Okay, nabiga magaalada lagu dhala maka. maalinkee la taariikhdee la dhalay nabiga? 12 Rabiicul Awwal. aabihiis goormaa la ofsaday nabiga sala allahu alay wasalam? nabiga ku jira hooyadiisa caloosheeda. magaaladee ku tugan yahay? nabiga aabihiisa muxuu ku tugan yahay Madiina. Okay, kabacdi yaa nabiga tarbiyey? waxaa tarbiyeysa hooyadiis. yaa nabiga nuujiyey hooyadiis kabacdi? Suwaybatu Asmiya iyo Aamin iyo Xaliimatu Sacdiya markaa ka bacdi. Okay, hooyadiis markii la oofsaday oo ay dhimanaysay nabigu miyuu ku jira ajkiisa? 6 sano jira nabiga calayhi salaatu wasalaam. kabacdi hooyadiis markay dhimatay yaa xanaaneeyey nabiga? Ayman. after ayman yaa kafaalo qaaday kabacdi? awowgiisa. awowgiis goormaa la oofsaday cumrigiisa meequu ahaa nabigu? 8 sano nabigu jira. Okay, cumrigiis meequu jiray markuu nabigu safray adeerkiisa ula safray abaatalib sham? 9 sano. Okay, sham iyo isku arkay nabiga? muxuu arkay suufiyada laban jira Baxiira. tijaaradii Khadiija markuu safrayay nabiga ajkiisa meequu ahaa? 25 sano. goormuu guursaday Khadiija nabiga sala allahu alay wasalam? markuu ka soo laabtay safarka 2 bilood ka bacdi. cumrigeeda meequu ahaa Khadiija? 40 sano. nabiguna meequu jiray? 25 sano. Okay, nabiga meeqaa lagu soo saaray ajkiisa? 40 sano. magaalada marka meequu joogay? 10 sano. 10 sano. haya madiinana meequu joogay? من 13 سنة. xaggee joogay 13 sano? مكة. madiinana? 10 سنة. 10 sano. Okay. Okay, nabiga markay kacbada dhisayeen Quraysh oo ay dhaheen qofka baxajul aswadka halka kasoo galaa nala saaraya cumrigiisa meequu ahaa nabigu sala allahu alay wasalam? wuxuu jiray 35 sano. Okay, nabiga xaaskiisa waxaa kamid ahayd bakashay Khadiija meeqa u dhashay nabiga ciyaal? 6 magacyadood? waxaa waaye Qaasim, Cabdullaahi, Ibraahim, Faadumo, Ruqiya, Umul Kulthum iyo Saynaba. intaasoo dhan ayadaa dhashay? ها Khadiija dhashay waxaa ka yahay Ibraahim waxaa ka Ibraahim yaa dhalay? Maariyatul Qibtiya. Okay, barakallahu fiik. waa mahadsan tahay aad waa mahadsan tahay. adiga mudan. shukran. adan bishaar. Okay, nimca aadan. عاشق أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. nabiga hooyadiisa markay dhimanaysay nabiga cumrigiisa meequu jiray? 6 sano jiray. Okay, waxaad ka soo noqoto markay wafaadiisay dhimanaysay? Madiina ka soo noqotay. oo Madiina maxay u aaday? Madiina waxay u aaday nabiga aabihi qabrigeedii soo siyaaranaysay. yaa la socday?
waxaa la socday awowga cabdimudalib. okay nebiga shaqadii uu qabanayay markuu yaraa maxay ahayd salawaatu rabbi wasalaamu caleyh? sala allahu calayhi wasalam. nebiga markuu yaraa wuxuu samayn jiray reer Maka ayuu ariga u raaci jiray. okay ma ujri ku qaadi jiray iyo lacag safriga? ajuuruu ku qaadan jiray wuxuu nafsadiisa uu u sarfeef gareeyo. okay safarkiisii koobaad sham uu aadayey oo adeerkiisa uu la socday tijaarada nebiga ma ku jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh? 9 sano ayuu jiray, 13 waa la sheegaa. okay iyay isku arkeen meeshaas? wuxuu arkay raahibkii Baxayra. Baxayro muxuu yiri markuu ku arkay nebiga meeshaas? wuxuu yiri Baxayro nebiga ayuu ku aqoonsaday calaamadihiisa. wuxuu ahaa nin oo magaranaysaay raahib ahoo diintii hore wax ka garanaya. marka wuxuu ku yiri adeerkiisa ka dalbaday nebiga inuu ku celiyo meeshiisa si aan cadowga u dhibaataynin intay aqoonaan. markaas isagoo u daliilsanaya ehlu kitaabka waxyaabihii ku qornayo looga sheekeeyay nebi aakhirul anbiyaa inuu imaanayo. okay maasha allah baarak allahu fiikum ma aada umahadsan tahay wajazak allah khayran. okay Faadimo Shariif. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبيك مقعيس نبيك مقعيسة. الو ها السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. نبيك مقعيسة الغربة مقعيس النبي وعيسى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أبيسنا محاولها عبد الله. أبويسنا عبد المطلب. دينتو النبي قال لي محي أهل دين إسلامي. أوكي يوضع شيء نبي فرحان غير قريش وكذا شيء. اوكي هو اسمه عيد نبي آمنة بنت وهب. اوكي ابيس iyo hooyadiis awowgee ku kulmaan nabiga iyo aabihiis iyo hooyadiis? كلاب. nabiga sanadkee la dhalay? waxaa la dhalay sanadka caamil fiil sanadka maroodi. maalinkee la dhalay nabiga? maalin isniina. taariikhdu meeqay ahayd? rabiicul awal 12. okay nabiga khadiija goormuu guursaday radia allahu canha waardaa? khadiija wuxuu guursaday sheekh markuu kasoo noqday arli sham markii labaad uu u safray 2 bilood ka dhacay. cumrigeedu meequu ahaa khadiija markuu nabiga guursanayay? 40 sano. nabiguna meequu jiray? 25. nabiga ka hor ma guur bay soo martay khadiija? ها شيخ nin kale soo goysatay Abu Hala ulay. maxay u dhashay? gabar cunug ay u dhashay. magaciis? هندن والله هالنا والله خلاص ما على وشها. شكرا بارك الله فيك. ألو ما تطهي فاضل شريف. أوكي فريح مشري. السلام عليكم صاحبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبي قبل كل سفر أديركيس أبا طالب عمره يسمى قوها. 9 أما 13. اوكي أرض الشام بيوصفين يقول كل من أرض الشام راهبك بحيرة. اوكي محكو أقوى صدى مثل النبي صلى الله عليه وسلم.
calaamadihii kitaabkiisii oo kitaabkii oo buu ku aqoonsaday calaamadaas iyo nebiga aakhirada oo aakhira ambiyaa waayo. okay nebiga khadiija markuu tijaarada u sameynaya cumrigiisa meequu ahaa? 25. okay khadiija gormay iskursadeen marka nebiga sala allahu alayhi wasalam? safarkaas markuu kasoo noqdo 2 bilood ka bacdi. cumrigeedu meequu jiray? meequu ahaa cumrigeedu? 40. nebiguna meequu jiray? 25. okay markuu nebiga la mushaarakeeyey quraysh inuu kacbada la bineeyo la dhiso nebiga ajkiisa meequu ahaa? daadid meeq ahay? 35. okay xikmadda nebiga ay ugu yeereen maxay ahayd? waxay ugu yeereen kalcaday jabiyeen way dhiseen marka dhagaxa madow waxay dhaheen meeshay isku khilaafeen meeshay dhigi lahaayeen bay isku khilaafeen marka waxay dhaheen qofka ugu horreeya masaajidka soo gala qofkaasaana kala xukumaya marka nebigaa soo galay marka nebigu wuxuu dhaha go fidiye go-i bay fidiyeen wuxuu dhahay yani kuwa ugu wanaagsano madaxdooda dacalka saha qabteen dhagaxii bay dhex dhigeen markii dhagaxa meesha la dhigayeen asaga gacantiisa nebiga calai slam ku saaray. okay baraka allahu fiki aada umahadsan tahay jazak illah khayra. saabiriina hello sheekh Ahmed. okay nebiga marka lasoo saaray ajkiisa meequu ahaa? 40 sano. okay nebiga xikmadda loo soo saaray marka maxay ahayd marka dadka loogu soo diray? waxaa loogu soo saaray ilaahay wuu soo saaray asaga oo dadka u diga asagoo u bishaareynaya oo u digaayo oo ugu yeera ilaahay xaqiisa oo ilaahay idinkiisa ugu yeera asagoo fiinus qifaysa ah. okay waxyiga nebiga marka waxyiga lagu bilaabay marka hore waxyiga qaab noocee ah nebiga lagu bilaabo? ru'ya saadiq uu ku bilowday wacdiga waxyiga rasuulka muusan arkaynin wax hurdada dhexdeeda ilaa hadduu arko markuus uu soo jeeday ay xaqiiqa u noqon jireen. oo yaa waxyiga kusoo dejinayay nebiga? okay jibriil maxaa la yidhaahdaa? jibriil معلم الأنبياء. معلم الوحي معلم الأنبياء. اوكي رؤساء الملائكة ميقا واي؟ ملائكة مدحديدا الشقي هو علم على هذا. رؤساء الملائكة ملائكة مدحدودا ميقا واي؟ جبريل واي ملائكة مدحديدا. اوكي ملائكة in garanay duuduub ahaan malaa'igta ilaahay cadadkooda ma la koobi karo oo waa fara badan yihiin intaa loo rumeeyo waa waajib laakiin tafsiil ahaan malaa'igta inta la rumeeyana inta waajibka in la rumeeyo meeqa waayo? 10 waayo sheekh. okay 10kaas magacyadooda waa maxay? waxaa waaye jibriil jibriil iyo إسرائيل يا عزرائيل يا رقيب يا عتيد منكر يا نكير رضوان يا مالك. اوكي رقيب يا عتيد منكر يا نكير رضوان يا مالك هي لبدا ناس جنة إذا توقفوها يا جبريل توقفوها يا طبعاً واحد بدن بعرفين ولي إسرافيل يا عزرائيل يا ميكائيل. يا ميكائيل اوكي جبريل شقده وقبنا إلهي وجرسده waa maxay؟ waxyigu macal u keena ambiyada. إسرافيلنا waa midka bunka fuufa. عزرائيلنا ملك الموت. جبريل ميكائيل إسرافيل عزرائيل. ميكائيلنا مدرك وحسابية أي رزاقة. رقيب عتيد شكله waa maxay؟ waa labada kaatib acma oo qoro qof kasta uu ku sameeyo. munkar iyo nakiir
masaa'il alqabri oo dadka qabriga ku su'aalo. Okay, labada dhiga kuwe. Malik iyo Ridwan. Okay, Malik shaqadiisa maxay? Qaadi Munaar. Okay. Ka kalena waa maxay? Qaadi Mujanna. Nabiga sallallahu alayhi wasallam dacwadiisa intuu sareysanayay oo hoos u dhigayay muddo nabigu dacwada hoos u dhigayay gaaladu ay dhibayeen. Muddadaas meeqay ahayd? 3 sano. Okay, marxaba waa gartay. Okay, barakallahu fiiki. Ada ma santahay sadrin. Okay, Halimatu Saadiya. Halimatu Saadiya. Assalaamu calaykum Sheekh Axmed. Calaykum salaam. Qofkii ugu horeeyay oo dumar oo nabiga rumeeyay ahaa Khadija bint Khuwaylid Sheekh. Okay, nabiga iyo Khadija markuu safarkii oo nabigu business oo xoolaheeda ugu shaqeynayay Khadija nabiga yaa la socday adeerkiis Abi Daalib la socday. kaas kartay hay safarkii kale yaa la socday safarkii labaad adoonkii Khadijo oo Maysara. Okay, ragga yaa ugu horeeyay qof rumeeya nabiga Abu Bakr Siddiq. Okay, carruurtan ayaa ugu horeeyay Ali ibn Abi Daalib. adoomahana Zayd bin Xaaris. Okay, nabiga waxaa la dhahay dacwadiisii 3 sano uu siraysanayay markaa kabacdi waxaa la faray inuu nabigu uu la jahro dacwada uu kor u qaado. nabigu xagee koray marka salawaatu rabbi wa salaamuhu alayh? buurta Safa iyo Marwa ayuu koray. marka wuxuu shiriyay aqaaribtiisii buu shiriyay. wuxuu yiraahday ma ii rumaynaysaan haddii aan wax idin sheego? waxay yiraahdeen waan ku rumaynaynaa, kuguma aanan baran wax been ah ilaa maalintii aad dhalatay ilaa hadda. markii uu u sheegay uu yiraahday waxaan idinkaga digayaa cadaab daran. dadkii oo dhan way ajiibeen oo si fiican bay ula hadleen intii aanan ka ahayn adeerkiis Abulahab. Abulahab wuxuu yiraahday aad buu si xun buu u radiyay. wuxuu yiraahday ma waxaan baad noo soo shirisay, halaag baa kuu sugnaaday ma waxa Maxamedow halaag baa kuu sugnaaday ma waxaan baad noo soo shirisay buu yiraahday. xaqiisana aayad baa kusoo degtay suuratul Lahab. Okay, waa gartay. Okay, Abu Talib markii u yimaadeen Quraysh maratan thaniya maxay ku dhaheen adeerkiis? markii labaad markay u yimaadeen waxay yiraahdeen wiilka walaalkaa dhalay naga celi. wuxuu caayayaa ilaahyadeena oo hal ilaah kasoo reebaya. aabayaasheenana waxaan caqli lahayn, dadkeena caqliga lahaana waxaan caqli lahayn buu ku sifaynayaa. inaad naga manciso oo naga celiso ama inaan annaga iska celino. marka adeerkiis wuu u imaaday nabiga sallallahu alayhi wasallam. Abu Daalib wuu u yimaaday. wuxuu yiraahday inaad ka joogto baan rabaa, waxaan aad iska dayso anigoo kaaga cabsi qabo yacni dhibaato ay reer Quraysh ku geystaan. nabiga wuu diiday. wuxuu yiraahday ma aan joojinayo ilaa ilaahay uu xaqa ka soo saaro ama sukaydeeda uu ihalaago. adeerkiis marka wuxuu yiraahday waduu yiraahday hawshaada marka. Okay, markii saddexaad u yimaadeen maxay ku dhaheen marka Quraysh nabiga adeerkiis? markii saddexaad markay u yimaadeen waxay ku yiraahdeen wiilka walaalkaa dhalay nasii. wiilkan baan ku siinaynaa. wiil bay u keeneen. ay yiraahdeen wiilkan qaado oo korso, annagana wiilka walaalkaa dhalay nasii waan dilaynaaye.
markaas wuxuu ku yidhaahday ma wiilkiinaan inta idiin qaadaan idiin barbaariya anigana kayga aad dishaan waxaad dalbaysaan baabaas leh. okay kabacdi marka ma iska noqdeen? way laafteen ayagoo aad iyo aad u careysan. madaalibta iyo waxyaalaha ay ka dalbayeen quraysh nebiga xaggiisa sala allahu alayhi wasalam markay quraysh arkeen nebigu inay aada u dhibaayaan nebiga dacwadii iyo diintii u faafinaya ma ka mancisay iyo saxaabadii? maya sheekh, markay u imaadeen ooy arkeen inay diintii sii faafayso nebigana uu dacwadii sii wato waxay ka codsadeen ay yidhaahdeen annaga ilaahyadeena mar nala caabud, adiga ilaahaygaagana mar baan kula caabudaynaa. ilaahay baa kusoo dejiyey suurata kaafiruun. markii dambena waxay weydiisteen ay yidhaahdeen markay suurat kaafiruun soo degta haddana waxay weydiisteen qur-aanka in laga saaro meelaha ilaahyadooda caayayo oo qur-aan kale lagu bedelo. haddana nabiga calayhi salaatu wasalaam aayad kalea lagu soo dejiyey oo ah aniga yacni inuusan rasuulka wuxuu doono uusan qur-aanka ku dari karin, wixii uu doonana uusan ka saari karinin, waxyi ilaahay xaggiisa ka socdo uu yahay qur-aanka. okay saxaabada nebiga waa la cadaabay, waa la dhibaateeyey, qaar waa la darbiyey, qaar waa xabsi baa lagu riday, qaar juuc iyo cadash bay dhibaato macnaha u gaareen. dadkii noocaas ayaa kamid ahaa, ma nooga sheegi kartaa wax? ha sheekh, saxaabadii sida daran loo cadaabayo waxaa kamid ahaa bilaal, waxaa kaloo kamid ahaa camaar binu yaasir, waxaa kaloo iyo aabihiis, hooyadiis iyo walaalkiis, waxaa kaloo kamid ahaa khadaab binu arata. okay bilaal see loo cadaabay? bilaal waxaa loo cadaabi jiray inta xarig addoonkiisa intuu xarig ku xiro buu caruurta iyo u dhiibi jira, suuqyada lagu jiidi jiray. waxaa kaloo loo cadaabi jiray qoraxda baa inta la dhigo baa dhagax xabadka laga saari jiray. adi cadaab daran bay cadaabi jireen. marka isagana wuxuu ka qaadi jiray iimaan baa uga zaa'idi jiray, ilaahay baa waaxida uu dhihi jiray. okay saxaabadu way hijroodeen, nebigu wuxuu ufasaxay inay hijroodaan, ardul xabashi u hijroodeen, xabashat lula. saxaabada hijrootay meeqay ahaayeen? hijriyadii ugu horeysay sheekh asxaabtii hijrootay waxay ahaayeen 10 raga iyo 5 dumara. yaa kamid ahaa saxaabada? cusmaan bin cafaan iyo xaaskiisa ruqaya oo rasuulka gabadhiisa ahayd sallallahu alayhi wasallam. cusmaan waxaa la dhahaa dun nuurayn, kuyadiisa ama malaqabka loogu yeero waa dun nuurayn baa la dhahaa, kii labada nuur u saaxiibka. labadaas nuur maxaa loola jeedaa? sheekh waxaa loola jeedaa 2 gabdhood oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu dhalay buu labadaba guur kusoo maray. gabar baa markii hore uu qabay, gabadhii way ka dhimatay, haddana suubanaha sallallahu alayhi wasallam gabadhan kale haddana siiyey. marka saasaa 2 nuur loogu bixiyey. labadaas gabdhood waa kuwe magacyaalkooda nebigu uu siiyey gabadhii nebiga ah? waa ruqaya iyo kaltuun. okay muddo intee la-eg bay kusoo noqdeen marka saxaabada u hijrootay ardul xabash? 3 bilood bay sheekh usoo laabteen, maxaa yeelay qurbaha aad buu u dhib badan yahay noloshiisa, way la qabsan waayeen. 3 bilood ka dambay soo laabteen. oo sanadkaas goormu ahaa saa loo hijroonaya? sheekh axmed sanadii 5aad bay ahayd, raalli noqo, sanadii 5aad. goorbay soo islaameen xamza iyo sayd cumar? sanadkee? sanadii 5aad. okay sanadii 5aad. okay labadaas saxaabi intiisa soo islaamay nebigu muxuu ku ducayn jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh? wuxuu ku ducayn jiray ilaahayow diintaada kusoo quwee 2 cumar midkood.
marka ilaahay wuxuu kusoo quweeyey sayid cumar oo ducadii ilaahay ku aqbalay. Okay, hijratu xabashatu thaniya, saxaabadii hijradii meeqay ahayd? waxay ahaayeen 73 raga iyo 11 dumar. hijriyada sanadkaas oo sanadkee nebinimada xaggeeda sanadkee ahaa waqtiga hijrada saxaabada nebiga? sanadii 7 ee nebinimada. Okay, markay ogaadeen gaaladii Quraysh inay hijroodeen saxaabada nebigu ardul xabash ay aadeen yay ka daba direen? 2 nin bay ka daba direen. Okay, ka soco. macnaha 2 nin bay ka daba direen. 2 nin marka maxay ka dalbanayeen gaalada qolaas ardul xabash joogta? maxay ka dalbanayeen? waxay ku dhaheen boqorkii xabashay u tageen. waxay dhaheen 2 nin baa yani dad baa kuu soo socdo oo dadkeena dadkii ugu caqliyada darnaa ah. marka waxay la yimaadeen diin aanan adiguna garanaynin annaguna aan garanaynin. marka dadkaas inaad noo soo celisaan rabnaa. marka boqorkii xabashna wuxuu ku yidhaahday ma idin soo dhiibaayo ilaa horta ay isoo gaaraan oo aan arko. Okay, waan gartay. Najaashi marka islaamka miyuu qaatay boqorkii Najaashi? Najaashi haa wuu islaamay marka saxaabadii ay uga hadleen islaamka ay xaqiisa u sheegeen iyo nebiga sida uu yahay. suurata maryama awalkeeda ayay ku akhriyeen. saxaabiga uu ku akhriyey. markii uu ku akhriyey Najaashi iyo dadkii la joogay oo dhan way islaameen. sanadkee ahayd xagga nebinimada sanadkaas? sanadii 10aad. Okay, kabacdi waxaa la dhahay Najaashi waa dhintay baa la dhahay, waa wafaaday. nebiga wuxuu u tukaday salaad janaaza la yidhaahdo. salaadaas waa maxay ahayd? waxaa la yidhaahdaa salaadaas janaasatu qaa'ib baa la yidhaahdaa. qofka oo magaalo kale ku dhinto magaalo kale loogu tukado. marka salaadaas u tukaday nebiga sallallahu alayhi wasallam. marka salaadaas waa banaan tahay qofka meel kale ku dhintay in loo tukado? haa way banaan tahay. Okay, nebiga markii la sharay oo gaaladu ay dhaheen nebiga yaan loo gelin, sanadkee ahayd nebinimada? markii la sharay nebiga sanadii 7aad. sanadii 7aad. waa gartay. sheekh sanadii 10aad waaye, sanadii 10aad. Okay, sanadaas laftigeeda nebiga yaa u imaaday wafdi ah oo nebiga u yimid? wafdi reer Najraan aha u yimaaday. meeqay ahaayeen? 20 nin. nebigu muxuu ku dul akhriyey? nebiga qur-aanka uu ku dul akhriyey. kulligoodna way wada islaameen. marka abulahab baa aad u ceebeeyey oo maaragtay u aflagaadeeyey. wax weligiin lasoo dirsado oo idinka axmaqsan ma aanan arkin buu yidhaahday. waxay ku yidhaahdeen adigu wixii aad qaadato iyo ku jir jaahilnimadaada annaguna waxaan qaadanaan leenahay faraha naga qaad. islaamnimadoodana ay qaateen. khadiija gormay dhimatay? sanadkee dhimatay nebinimada? khadiija waxay dhimatay sanadii 10aad oo nebinimada. sanadii 10aad. Okay, nebigu markay dhimatay nebigu miyuu ka murugooday xaaskiisii khadiija? haa aad buu u murugooday. haddana waxaa kaloo dhacay bil gudaheeda adeerkiis Abu Daalib baa geeriyooday. marka sanadkaas sanad aad u murugo badan buu ahaa. waxaana lagu magacaabaa caamul xusni, sanadkii murugada. Okay, after khadiija markay dhimatay ilaa nebigu zawjadiisii bay ahayd, kabacdi yuu guursaday nebigu? sawda guursaday. haddana wuxuu guursaday Caaisha. Caaisha meeqay jirtay markuu nebigu guursanayo?
7 sano ilaa 9 sanona waa la sheegaa. nebiga sala allahu alay slam xaasaskiisa oo dhan markuu dhimanaya nebiga xaasaskiisu meeqay ahaayeen oo ka dhintay? 9. okay, laakiin marka la isku daro duuduub ahaan kulli meeqay ahaayeen xaasaska nebigu guursaday? 11. okay, waayo laakiin rasuulka intaasoo xaasasa zawjaada u guursaday xikmadda ku jirta maxay tahay? xikmadda ku jirta waxay tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa awood aan ragga kale lahayn baa ilaahay siiyey, marka sidaas uu guursaday oo xaasas badan asaga loogu baneeyay. yacni hadda ragga caadiga ah 4 haween baa loo baneeyey, laakiin rasuulka 9 haween buu hal mar wada qabay. marka asagu bashar wuu ahaa, laakiin bashar ilaahay uu awood iyo wax walba uu ku manaystay oo ahaa. okay, waa gartay. xaasaska nabigeena sala allahu alayhi wasalam meeqaa garooba ahaa, meeqaase gabdha ahaa? caaisha keliya gabar ka ahayd, inta kala garooba ahaan ka wadaa. min macnaha inta kala guurar hor soo maray ilaa caaisha mooyaane? ha, caaisha gabar ahayd, inta kale garoobay ahaayeen. okay, nebiga markuu u hijrooday Taa'if sanadkee ahaa sanadkaas? Taa'if markuu u hijrooday sanadii 11aad. yaa la socday? sanadii 11aad yaa la socday? waxaa la socday Sayd bin Xaaris. nebigu yuu wajahay uu tegay qabiilkee u tegay? reer faqiiq sheekh reer faqiiq reer la yidhaahdo u tegay oo Taa'if u tegay. okay, muxuu ka dalbaday? wuxuu ka dalbaday inay yacni inuu ka yimaado Mako, marka inay soo dhaweeyaan ay u gargaaraan, mana ay u gargaarinin. dhibaatooyin badan bay gaarsiiyeen, way dileen oo dhagaxyay ku tuureen ilaa dhiigga madaxiisa ka yimaado oo kabihiisa gaaro. waxaana ka mancinaya dhagaxa Sayd. okay, ما شاء الله تعالى. بارك الله فيك. ألا وما صنتي حالة مساعدية وأحسن الله إليك وجزاك الله خيرا. فيك ألا وما صنتي حالة مساعدية وأحسن الله إليك وجزاك الله خيرا. حليمة علي. السلام عليكم شهر. عليكم السلام. ليلة الإسراء والمعراج سنة كيف على حلمه؟ السنة بكل طبنات ويتريد. okay, nebiga waxaa lagu karaameeyey in la qaado xagga sare loo qaado. xikmadda ku jirtay maxay ahayd nebiga xagga sare lagu qaado? waxay ahayd ilaahay inuu tuso aayadihiisa waaweyn. okay, caalamku meeqa u qaybsamaa? meeqa caalam jirta? 2 caalam sufli iyo caalam culuwi. okay, caalam alculuwi maxaa loola jeedaa? caalamka naga sareeya. caalam suflina? caalamka aan joogno. caalamka aan joognaa loola jeedaa. okay, nebiga markuu ka baxay godkii qaarul xira la oran jiray, gaaladu markay baxtiga ku sameeyeen kabacdi meeqay godkaas ku nagaayeen nebiga asaga iyo saaxiibkiisa? 3 habeen. okay, yaa wax u keeni jiray biyaha? yaa u keeni jiray biyaha iyo akhbaarta reer Quraysheed? Cabdullaahi bin Abi Bakr. walaashiisana waxay u keeni jirtay cuntada. oo waa tahay walaashiisaas? Asma binti Abi Bakr. Asma binti Abi Bakr. okay, nebiga markay baxeen oo gaaladana ay nebiga raadinayeen, dariiqa yaa ku haleelay nebiga sala allahu alay wasalam? Suraaqatu bin Malik nin la yidhaahdo. okay, Suraaqa maxaa ku qabsaday marka? xikmadda ku dhacday Suraaqa maxay ahayd ilaa nebiga inuu dilo u socday? ilaahay baa fashilay. faraska markuu nebiga xaggiisa soo aado waxaa layidhi dhulka galaayo, lugaha dhulka u gala, markuu ka noqdana waa uga baxaan. markuu arkay inuusan nebiga xaggiisa aadi karin, usan waxna u geysan karin, buu iska tegay calayhi salaatu wasalaam. okay, nebigu Quba goormuu gaaray? masjidkii Quba
wuxuu uga gaaray bisha rabiicul awal labadeedii oo ku aadanayd bisha kale taariikhdeedii ba tilmaam sheekh labadii rabiicul awal buu gaaray. Okay. meequu ku nagaaday qoba nabigu sal lla ly slam meeqa habeen? 22 habeen. Okay, meesha muxuu ka binayay nabigu ka dhisay marka? masjidkii buu dhisay. Okay. Okay, nabiga markii uu madiine u socday sala allahu alayhi wasalam wadada dhexdeeda maxaa ku haleelay nabiga? maxaa ku qabsaday? salaadii jimcaha. Okay, marka muxuu sameeyey nabigu? asaga iyo dadkii maciisa salaada dariiqay ku tukadeen. Okay, jumcadaasu maxay ahayd marka? khudbadaasu maxay ahayd? khudbadii ugu horeysay oo islaamka ay tukadeen iyo jumcadii ugu horeysay. Okay, nabiga yaa kusoo dhaweeyey magaalada madiina salawaatu rabbi wasalaamu caleyh? ansaar iyo muhaajiriin. Okay, nabiga maxay kusoo dhaweynayeen? waxaa soo dhaweeyey dadkii madiino, caruurtii, haweenkii iyo caruurtii iyo adoomadii iyo waa soo dhaweeyey. Okay, nabiga markuu madiina soo galay gurigee degay? gurigii abu ayub al-ansari. abu ayub al-ansari radia allahu canhu. Okay, waa gartay. dumarka yaa ugu horreeyay qof nabiga rumeeya? khadiija bint khuwayl. raggana? abubakar sidiiq. addoomahana? zayd bin xaarisa. sibyaankana? ciyaalki? cali bin abi talib. Okay, sanadkii nebiga ay gaaladu shaleen qoraysh oo nebigu ay cunaqabateeyeen sanadkii ahaa nebinimada? sanadkii 7. ise sanadkaas dooda laftigiisa nebiga yaa usoo wafdiye usoo galay sala allahu alayh wasalam? wafdigii oo reer nasraanina jiraan. marka miyay islaameen? laakiin sheekh sanadkii 10 wey waxay usoo wafdiyeen. nebiga 3 sano sharnaa. sanadkii 7 baa la sharay. laakiin qoladan waxay usoo wafdiyeen waa sanadkii 10. Okay, ise sanadka laftigiisa yaa dhintay? sanadkii 10 khadiija. yaa kaloo dhintay? nebiga adeerkiisa alayhi salaatu wasalaam abi talib. after khadiija nebigu yuu guursaday? sawda tusamca. marka yuu caqdiyey uu nikaxsaday? caaisha. sanadkii khadiija iyo adeerkiisa ay dhinteen sanadka maxaa lagu magacaabaa? caamil xusni. sanadkii 12 yaa nebiga usoo galay salawaatu rabbi wasalaamu u yimid? sanadii 12 oo nebinimada nebiga waxaa usoo wafdisay alayhi salaatu wasalaam 12 nin oo carabtii madiine kamid ah. nebiga waxay kula kulmeen cinda caqabati al-uulaa. way la mawaayicoodeen. 10 waxay ahayd reer aws, 2 waxay ahaayeen reer qasraj. shuruud ayay nebiga alayhi salaatu wasalaam kula mawaayicoodeen inaysan ilaahay u shariig yeelayn, inaysan waxadayn, inaysan sinaysanayn, inaysan awlaadooda dilayn, inaysan been abuur la imaanin hortooda, inaysan ilaahay shay macruuf aysan ku caasinayn. nebigana wuxuu u ballan qaaday inay janno galahayaan hadday waafaqaan sidaas alayhi salaatu wasalaam. madiinay ku laabteen, ayagii oo islaamahay madiine ku laabteen. guryihii dadkii oo dhan reer madiinana islaamnimaday dadkii kusoo jiideen. dadkii way islaameen. nebiga macooda wuxuu diray muscab bin cumayr.
markay ay madiino tageen sababkooda dadkii inta ku islaameen baa guryaha madiino guri aan islaamka laga sheegin ma jirin. okay, sanadkii 13 ee nebinimada yaa usoo wafdiyey nebiga sal alla alay slam macnaa u imaaday. sanadii 13 oo nebinimada calayhi salaatu wasalaam nebiga waxa usoo wafdisay 73 nin oo carabtii madiine kamida iyo 2 gabdhood. nebiga way la mubaayacooneen kuwii hore sababkoodayna keentay inay 73 nin ay haddana usoo wafdiyaan nebiga way la mubaayacoodeen cinda caqabati thaniya way kula mubaayacoodeen ilaahay inay caabudahayaan aysan ilaahay u shariig yeelayn. wuxuu diray nebigu calayhi salaatu wasalaam 12 nin oo uu wakiilo uga dhigay qonkooda oo kuflaa uu nebiga u bixiyey calayhi salaatu wasalaam. sidaasay ku noqdeen ayagiina halkaasay markaas islaamnimadkii kasii wadeen. waxaan nebigu markuu sii socday madiine jumcadii waa dariiqa ku haleysay waa tukaday. taas waxay ahayd awali jumca, khudbadiina waxay ahayd awal khudba. okay, markaas kabacdina madiinuu kalay si fiican buu ula kulmay oo macnaha si fiican bay usoo dhaweeyeen rasuulka sala alla alay slam. nebigu gurigee degay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh? guriga Abaa Ayyub al-Ansaari. okay, nebigu marka dadkii uu kasoo tegay kabacdi muxuu nebigu yuu u diray sala allahu alay wasalam? akhbaar buu u diray. marka way soo hijroodeen cabdullaahi bin abi bakr. okay, maasha allah, tabaaraka allahu fiki wajazaka illahu khayran. aada umahadsan tahay xalimo, maasha allahu taala khayr allah kusiiyo. kulligiin aada umahadsan tihiin group B iyo group A. insha allahu tacaala su-aalihii intaasay noogu dhamaadeen insha allahu tacaala caawo. marka qolo walba waxaan kasoo qaadayaa insha allahu tacaala 2 qof baan kasoo qaadayaa. 2daas qof magacyaalkooda anaa haysta. group walba 2daas qof baan insha allahu tacaala guddoonsiin doonaa certificate ama shahaadooyin waxa la yidhaahdo insha allahu tacaala, maadaama ay yihiin dadkii markaas ugu sarreeyey insha allahu tacaala tartanka caawa aan qabanay. marka aada umahadsantihiin jamiican insha allah. 4 qof ma ka sheegayo meeshaan, laakiin insha allahu tacaala waqti kalaan sheegi doonaa insha allah. waxaan ma hadhay qaybtii oo sheekh sharmaake oo insha allahu tacaala gurubyadiina qaar kamid ah ay ku taxanaayeen. weliba aan uqiyaasay group A qaybaha kamid a. marka su-aalahaas la idin weydiin doonaa kabacdina waxaan insha allahu tacaala soo gabagabaysan doonaa marka barnaamijkaas su-aalihiisu ay dhamaadaan barnaamijkeeni insha allahu baan soo xiri doonaa. marka sheekh sharmaakan insha allah ku weydiinaya wixii ka dambeeya. aada umahadsantihiin, fajazakum allahu khayran. afsax allahu lisaanakum wabaaraka allahu fiikum وطول الله عمركم بالعمل والخير والسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حليمة